kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka qodobada xiisaha leh ee kugu soo gudbin doonana waxa qayb ka noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya oo hawada ka celisay laba diyaaradood ka soo kala duulay Garowe iyo sidoo kale Kismaayo kuwaas oo waday ciidamo fara badan oo ilaalo oo noqon lahaa madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland hadaba waxa ku kala fid dawladda federaalka Soomaaliya in arrintaasi samayso barnaamijka ayaad dhageystayaal kaga bari doontaan sidoo kale waxayna haynaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku tilmaamay diyaaradda maanta laga celiyay hawada isla markaana ay saarnaayeen ilaaladiisa inay yahay isku day dil ay fulisay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxaan maqlay doontaa barnaamijka falanqaynta wararka inta hawada ku jiro dagaal culus oo ka dhacay gobolka Awdal deegaanka ka tirsan dhimashada dhaawac fara badan ayaa dabcan halkaasi ka jira qodobadaas iyo qodobo kale waxaan ku soo kordhaa inta barnaamijka hawada ku jiro ayaad dhageystayaal ku maqlay doontaan ku soo dhawaada qodobadaas oo intaasi ka faahfaahsan waagaag aan ku bilowna dhageystayaal dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta hawada waxay ka celisay laba diyaaradood oo waday ilaalo ama ciidamo aad u fara badan oo markaasi ilaalo u noqon lahaa madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo ka soo kala duulay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalada Garowe waxaana dawladda federaalka Soomaaliya ay ku amartay inay si degdeg ah ugu laabtaan magaalooyinka ay ka soo duuleen arrintan waxaa lagu tilmaamay inay tahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay arrintaasi kaga gol leedahay in la tusiyo in magaalada ama wadankaba uu amni yahay isla markaana aysan habboonayn in ciidamo intaas la ag ay maamulada Puntland iyo Jubbaland madaxdooda ay soo qaataan isla markaana dadka ay u tusiyaan in aysan magaaladu aysan nabad ahayn madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo asagoo ku dhisay ka hadlay dhacdadan waxa uu ku tilmaamay in ay tahay isku day dil oo lagu sameeyay ribay askartaasi ka tirsan ciidamadiisa isla markaana saaki rurnimada hore ka soo duulay magaalada Garowe iyagoo ku soo jeeday magaalada Muqdisho waxa uu ku tilmaamay in ay tahay arrintaasi isku day dil oo bareer ah oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku tilaabsatay wuxuu intaasi ku daray in laga wada hadli doono arrintaasi wada hadal iyo sidoo kale isla xisaabtan ay gali doonto wasuuq hadalka u dhigay madaxweyne Dani waxa uu ku tilmaamay arrintaasi in ay tahay mid ugu horeysay ama ugu xumaydba ee ibid ka dhacda dhulka Soomaaliyeed maadaama askarta laga celiyay ay yihiin askar Soomaaliyeed isla markaana u socday meel ka mid ah Soomaaliya oo aysan ahayn ciidamo ajaanib ah oo wadanka ku soo duulay wuxuu la yaab ku tilmaamay ficilka dawladda federaalka Soomaaliya ay kula kacday askartiisa isla markaana hawada looga celiyay waxa uu sheegay inay ka qayb gali lahaadeen shirka wada tashiga qaran ee dawladda federaalka Soomaaliya ay hore uga fidisay magaalada Muqdisho asagoo shirkaasi la filayay inuu maanta oo ku beegantay taariikhda 1 bisha Febraayo ka furmo magaalada Muqdisho asaga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa arrintaasi xaggeeda ay ka socon kari weyday iyadana madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay arrintaasi ay si weyn kaga bigadiideen iyagoo doonayeen inay ka qayb galaan shirkaasi shirka wada tashiga qaran ayaa loo qorsheeyay inuu ka furmo magaalada Muqdisho maalinta Isniinta ee soo socota waxaana shirkaasi ka qayb galay doona inta badan madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale xubnaha kala duwan ee mucaaradka ee mustaqbalka Soomaaliya la magac baxay waxaana shirkaasi durba hareeyay shaki aad u fara badan maadaama ay mucaaradku hore kaga shakisanaayeen in shirkaasi lagu qabto magaalada Muqdisho waxaase xusid badan in hore sidaan kale fila Soomaaliya lagu qabtay shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale xubnaha mucaaradka oo ugu horeeyay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxaase arrintaas oo dhan isku fuuqsaday iyadoo qaar ka mid ah xubnaha mucaaradku ay shalay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho iyagoo doonaya ka qayb galaan shirkaas shirka dib ayaa dib u dhacay waxaase arrintaas shaki kala sii gelisay in madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland diyaaradihii ay u soo direen magaalada Muqdisho isla markaana wada ilaaladooda ay dawladda federaalka Soomaaliya hawada ka celisay kuna tilmaantay inay tahay mid laga wanaagsan yahay maadaama wadanku yahay wadan amni ah suurtagalna aysan ahayn in markaasi ciidamo inta la eegla soo galo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo asaguna arrintaasi ka hadlay oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu sheegay in madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland markay u duulayaan Imaaraadka Kenya iyo wadamo kale aysan marna qaadan ciidamo iyagoo boorsooyinkooda wata ay ka degaan hase yeeshee markay Muqdisho soo duulayaan ayuu sheegay in ciidamo fara badan ay soo wataan taas wuxuu su'aal galiyay bal waxa u socdaan waxa yihiin ma dagaal ba u socdaan mase waxa u socdaan wada hadal waxyaalaha aadka qariibka u ah ayuu wuxuu ka dhigay in ay suurtagal baahaynba in ciidamo inta la egi ay magaalada Muqdisho ay la soo galaan Saciid Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya hore ayuu hadallo kala duwan xanaf leh ay hawada isku mariyeen isaga iyo
xubno kale oo mucaarada oo madaxda maamul goboleedyada ay ku jireen dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay fidisay gogol ay markaasi lagu tashanayo ayaha Soomaaliya oo xubnaha mucaaradka oo mustaqbalka Soomaaliya la magac baxay ay markaasi u fidinayso si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale wax ka bedelka dastuurka oo khilaaf xooggan oo markaasi ka taagan yahay xubnaha mucaaradka waayay ugu dambeeyay waxay ku shirsanayeen magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya waxaana halkaasi ay kula hadlayeen ama ay kula shireenba qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka oo ay kala hadlayeen arrimaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya beesha caalamka ayaa ku qasabtay in madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ay ka qayb galaan shirkaasi ayagoona ku tilmaamay haddii ay shirkaasi ka qayb galin in siyaasadda Soomaaliya iyo masiirkeedaba aysan wax awood ku lahayn loona aqoonsan doono inay yihiin qaswadayaal taas oo ka dhuumanayaan ayay ka soo duuleen magaalada Nairobi ayagoona ku laabtay maamuladii markaas ay madaxda ka ahayeen waxaana intaas wixii ka dambeeyay ay qorsheynayeen sida ay ku fashili lahaayeen shirka ka furmaya magaalada Muqdisho si taas looga celiyo ama ay ku sheegaan inuu shirkaasi diiday ay wax soo qaateen diyaarado dagaal iyo sidoo kale askar aad u fara badan hase dawladda ayaa arintaasi ka hortagtay joojisay kula tilmaantay in arintaas aysan xilligeedii ahayn suurtagalna ahayn in dawladda federaalka Soomaaliya ay ogolaato in hub inta la eg iyo diyaarada inta la eg wadanka la soo gado garoonka diyaaradaha aadan cadde taas oo suurad xun ka bixinaysa wadanka iyo sidoo kale amni darro baahsan in ay ka jirto lama oga ilaa haatan inay saameyn adag ay ku yeelan doonto ama xubnaha mucaaradku ay iskaga bixi doonaan shirkii wada tashiga qaran ee hore ay dawladda federaalka Soomaaliya u fidisay iyadana la aaminsan yahay in saameyn togan ay arintaas ay ku yeelan doonto maadaama ay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay ka qayb galeen shirkaasi oo ilaaladooda loo diiday dadka waxay isweydiinayaan shakiga inta la eg waxa keenay oo ay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay ka shakisan yihiin oo diyaaradaha iyo sidoo kale ciidamada inta la eg ay ugu soo daabulayaan magaalada Muqdisho dad fara badan ayaa arintaas waxay iska weydiinayaan hase yeeshee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay war saxiix ka soo saarto diyaaradan maanta laga celiyay hawada magaalada Muqdisho inay soo gasho oo markaas ka soo duushay Garowe iyo waliba mid kale ayaduna ka timid dhinaca Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo aad ay isku soo tarayaan wararka xaqiiqo arintaani hadallo kala duwan ayaa dabcan baraha bulshada si weyn la isugu dhaafsanaya hadalayn xooggan ayaana markaas ka taagan bal sababta ka dambaysa in dawladda federaalka Soomaaliya ay arintaani ku kacdo waxay wararka ku soo kordhada wadayaal halkan ayaa ka daawan doontaan bal markaana hadeen eegno gobolka Awdal gaar ahaan deegaanka lagu hayo waxa maanta ka dhacay dagaal aad u xooggan oo iska hor yimaadeen laba bilisha beelad ee halkaasi wada degaa dhimasho dhaawac ayaa la soo warinay ilaa 13 qof oo labada dhinac ayaa la soo warinay dagaalkaas ay ku dhinteen dhaawac intaas waa uu ka badan yahay waxaana deegaanadaasi maalmo ugu dambeeyay ka taagnaa dagaal aad u xooggan oo laba bilisha beelad halkaasi ay ku dagaalamayeen waxaana dagaalkaas uu salka ku haya anoyan qabiil isku qabsi dhinaca dhulalka iyo waliba waxyaalo kale oo ay isku hayaan labadaasi beelad hase yeeshee xiisad maalmo ugu dambeeyay ka taagnaa deegaanadaasi ayaa la soo warinayaa in ugu dambeyntii ay sababtay in dagaal faraha la iskaga gubtay oo halkaasi ka dhaco iyadana ilaa haatan aysan jirin cid ku baxday oo markaasi ku kala hagoogatay labadaas beelad oo sida weyn isugu aynabaya gobolka Awdal gaar ahaan deegaanka lagu hayo oo si weyn markaas ay ugu dagaalamayeen maalmihii la soo dhaafay guud ahaan dhageystayaal barnaamijkeena falanqaynta wararka ee duhurnimada waa dhaga intaas tan iyo barnaamij caynkan oo kale waxay kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo